dunidan aad arkaysaan ee quruxda badan maalin walba waxaa ka dhaca qisooyin iyo dhacdooyin taariikh reeba sooyaalka taariikheedna lagu daro qaybbaa farxadooda wata halka qaybna ay wataan murugtooda riyadii rumowday waa qiso xasuus leh waana qiso jacayl oo dhaba haddaba sidee ku bilaabatay qisadani ee riyadii rumowday tani waa Sundus kanina waa Maxamed waa labada ruux ee qisadani cajiibka ah ay dhex martay haddaba aynu guda galno qisadan halkani waa mid ka mid ah goobaha loo dalxiis tago xilliga nasashada waxaan ku qaadanayaa waqtigayga nasashada waana halka ay ka bilaaban doonto qisadii waxaan si kadisa u arkayaa bacd ay marba mawjadaha baddu dhan u heehaabayaan ma malaysanaysid waxa aan ku arki doono waxaan helay boorso ma garan karo waxa gudaheeda ku jira balse waxaan kala kulmay buug si aad loo xifdiyay buuggaasi waxaan ka dhex heli doonaa mid ka mid ah qisooyinka ugu cajiibsanaa dunidani aynu ku noolnahay ugu horreyntiiba baalka hore ee buugga waxaa aad ii cajabgeliyey magaca qisada riyadii rumowday waxaan u soo qaatay gurigii waxaana u kuurgalay akhrinta buuggii Maxamed iyo Sundus barashadoodii kadib waxay ahaayeen laba shakhsi oo ku faraxsan la joogooda midba midka kale Sundus waqti hadda laga joogo isbarashadii kadib mar walba aan adigu aan kulmayno waxaan jeclaysanayaa ama arbaba inaan adigu kula joogo way agtaada waxa taala farxad waxa taala deganaansho xaqiiqatan maalintii aan adigu isbaranaynay way iga dooneed maalmaha kale xaqiiqatan waqtiyada qaybtood waxaan arkayaaba amba nidad ku soo celcelinaya anoo jeclaysan inaan adigu ku yimaado kula joogo taasna waa farxad iyo deganaansho aan agtaada ka helay Maxamed markasta kulankeena wuxuu yahay farxad sidoo kale waxaa farxad iisi ah xiriirkeena jacayl heerka uu marayo waxaa ii farxada sidoo kalena inaan haysto qof farxad gelinaya run ahaantii isoo bandhigaya dareenkiisa jacayl dareensiinaya inta uu ii qabo inta noloshada ka dhiman waxaan rajaynayaa insha Allah inaan sidaas ku ahaan doono runtii markii anigu baan kula Sundus ayaa waxaan ogaaday inaan qofkii aan nolosha u baahnaa inaan helay farxad iyo deganaansho hadda agtaada waan ku haystaa inkastoo nolosha heerkii aan rabnay aynan ka gaarin oo lamaano haddana xiriirkeena wuxuu ku saleysan yahay xiriir aan isku farxad gelinayno qofka kale oo ixtiraamayo taasna waa mid adigaan ka arkay sidoo kale waxaan ku ballan qaadayaa inta uu xiriirkeenu socdo Sundus in waxa weeye aan garabkaaga marnaba aanan ka maqnaan kaliya aan ka fikiro si adiga ku farxad gelin lahaa nolosheenana insha Allah ay noqon lahayd mid ku saleysan farxad iyo mustaqbal dhaba Sundus iyo Maxamed waqtiga ay kala maqan yihiin badankiis waxay ahaayeen kuwo wada hadla hadallada naxariista leh ee afkooda ka soo baxaya waxa ay keeni jireen inay isku seexdaan xilliyada qaar naxariista agtaada ka dareemo waxu daaqay maas codkaaga iska raba Sundus waxaa dhagaheeda ku soo dhacaya hadalkii abid ugu farxadda badnaa ee ay ka maqasho Maxamed talow maxay noqon doontaa Hello. Sundus Sundus سعيدة ما شاء الله حارس كور حاسة وقوفي أنا ما شاء الله سيدة هذه حالة كور أنا وقوفي أنا ما شاء الله حربي إن كويدية ورت سيدة أعضو تيميبا ما جرت أعمل أما الحيس أعضو بحذي وأد مقالة وقب بحذي
أنا جروك حيران باز براني ملا ما بحين والله سيدين بوجوده جروكم أي بالك يا مجالة sida u aragta haddii aan dabcan aan dalxiis aan ku geeyo oo adiga dad barashaba ku ah labadaba ku ah sida u aragta waa ay farxad wallah waa ay farxad waxaasoo insha Allah waqtiga jecesha laakiin oo soo diyaar loo marin bacdi inaan safar dalxiis galno insha Allah okay hay wallah tani waa Salma tanina waa Sundus waa labada saaxiib oo kaliya ay leedahay Sundus waana labada garbood oo ay mar walba la wadaagto xaaladaheeda iminka waxay la wadaagaysaa xaaladda safar ee ku soo korortay nolosheeda صاحي سنسي ايه رسيتها يا عم ما شاء الله حافظتي بتشوفها waxaan rabaa in adii Salma timaadaan Salmana waa waxyahay hawl badan kale واسمه جوبنا يا عسل حق خدمها وحب صاحبنا sheekaysan waqti qaadana rabay hada labadiinaba حاجات حافظتي بقى سو مش الموقع ما شاء الله ايه ماذا هي عبرت وين المهد كجلام الدويشدو حبيبي يلا والله وإذا حس مالمهر اسمعنا أركين يوربا سلمى دير هذا سجارة كم كيس نيدا يقول نستانه وجعله صاحب فرحة هذا صاحب مانتي وحكر أي فرحة إن أي تمادان طلبات مرة رأيي حاجة دايو أتكلم بدنا مركز سوا عشرين أرن برمين أيضا كورمو والله ميل بقى كدك سنين ميل بقى أسبوعين هذه دراسة وكو توصل لها أنا قال لي كفي عن ميل كستماينو أنا وقف عنات إنها ما وخر لشيء لو مرقد هذا ما تعلمون وقتها ما والله وح مرقوين معها صاحب هول بقى يوسو كردي هوش سواء وقتين محمد إن آخرنا كده حيو محمدنا وحيجي هذا حربنا يدين كحي كوك حي تلحيس وأنا وقتين دفاع ملك اسكاد أدقين قبرسك ما فصحيان واللي بدي قف والكالا شاكستني لين ما أوجي مركا صاحب حربين أي بدادسان وأنا وحرب عينا سفر كاس ضد الحيس كأ وأنا محمد ها مركا وحرب أي البوس عنا مركا وحرب عينا هو يكتر هذان وأنت أتكتان هبر أنا إرادة صاحب قضيبا أما أنا أبشر قان إرادة إذن كور هاي يقول وحن كورن يهوي سلمي سنس بأسرع عنا قرأته مركا وحرب صاحب من إساء يقول بعد already وحربت ما مضى أنا أسرعني أنا ويلين مقالة أيل بتجلس أسمع معها هذا إحنا ما يمدي وان رعني إلا بنت ضرنت الدم ودرنت هاي هدينا الأوجاد كورن إلا دد مقالة شوقنا هاي وابحي كرنا مقالة وحكدونا كرنا ما مضى لما فلان ولا لها بنا أركي كرا ما هي مر لي بس هاي صورة سوق جلس أنا وصورة حب ما ننقل مياه ولا انتهى ما مر لي بقى تكتين هو إلى خد كده اسود الراعي وحبي صادق يعني صار معهن صورة عن كل شيء لما صادقين حب ما نودتكين وانا ما هو أضو سكستا أحب أحاتي وصح صاحب هو يمدي هذا لبعض سوشيال ميديا هذا استعماله معها عابنا فيسبوك إنه مالها ما يهدو بتجيسانه هرب هذا الكلام كله ما يعني عابنا فيسبوك أم بقلا لكن يقوم تشيرو أو ما عرفتي ولا لها يقولوا كويس كدياس برا يقان حتى ما صاحب ذي ودك تشوق ما يقان مرك وحربا إذن كربي هو يدك تقاناي ما دام أي تتمادى وحربا أنا ترادنها بروا إسراعنا أما أنا لها هو قبلها إسراعنا صاحب أرتانا وأنت وقوس ما يكرنا مامضنا والله اللي كرنا لكن سفكر كفكر كدوان مويدة أنا مامضنا كن رحمة سيدا كلا ما بقروح بدنا إن إنك كل جينات تكتان وحفي عنا نسرع لكن هذا كوسور تجلي إن فكر كدوان أمام ولا تسقنا إلا واحد بيدعي كران صوما مياوي وصح صاحب معان لكن waxaa suurtagal noqonayn maxamed baa wuxuu u baahan yahay inaan sida israacno aad baa u jeclaan lahaa labadiina inaanu israacno oo maaragtay isweeshano laakiin aniguna meeshan ka imid isku daayo
laba qof oo xiriir wada leh ma kala baqaan oo meesha rabaan ba isku raacaan laakiin wiilkaasna wiil wanaagsan oo la igu halayn karo asagana yiraahday aan israacno labadeena laakiin يا صاحي معن دب ملهن إن شاء الله يديكم خير بيدير رجينا كل محمد أنا وكل صون أنا وكل صون صحي ما تكاغا شكلنا معهن ديلاينا يدين بدك إلا وقبت الحصول معنا أنا كنت يعني تصوري فيديو يال كل كنا كنت حسنا بشوفه حاجة لا كنا جرباي وينا نقال هالله أنت كران كنا أنا أنت أسقرين كرنا وأسقرنا كل سوشيال ميديا ما استعمالانه دي وكاسة إن شاء الله حبيبتي هاولا هاولا الوعتان كاغنا وانا arkay ma garata laakiin kuma soo celino tiiraydo xaqi ku laaban lahayd baan hawlaheedii waxa ku mashquulsanayn ha insha Allah wala insha Allah hadii la haydo هاي ستي ما شاء الله هاور خير ما هاي gabdhaha waa saaxiibada waa garanaya hooy oo socotaan maanta ma hawlis beed hooy waxaa rabnay safar dalxiis inaa aadno marka waa wada soconaadee safarkana warkaas hooy horta waxaa rabnay inaan dalxiis aadno sax gaya ayl ka soo laabano runtii dee anaga kaligeena suntas kama maarno inaan kaligeen tagnana ma rabno waxaan inaan isla soo dalxiisno inta aysan wadanka ka tegin aysan noqonin waxaan rabnaa inaan xogaa dalxiisiyo iska soo baashaanlo marka waxaan doonaynaa inaan fasax ka qaadano oo aan kula hadalno hooy waa si wanaagsan ka wada in asoo dalxiistaan oo waqti isla soo qaadataan wax wanaagsan laakiin gabdhana waa tihiin hakadaasaan batraadeen hooy ayl baa ka soo laabanayna muddo yar baa ku maqnaanana oo wax raga ma idin raacayaan أحسن بدن راعي ميان ama ha badnaadeen ama ha yaraadeen hadar baladu lama aamini karo xabadii laba iyo saddex inta midna lama aamini karo raggii baaba hadar waxay noqdeen khatarta koowaad oo dumarka laakiin ilaahay horta haydin nabadgeliyo idinkoo nabadgeliya haddii ilaahaydmo intii karankeena waa is ilaalinayna insha allah bidmillaahi kariim dadada isku humnana waan raacaynaa oo intii itaalkeena intaan ka ognahay aan waxbay noo geysanayn dee ilaahayna hayna nabad yeelo bilaayana ilaahay hay naga ilaasho muhiimada kaliya aanu macnaha kugu nin waxay tahay inaan fasaxdid aad ogaatid meesha aan ku maqannahay insha allah hooyo saaka waa subax kale oo qurxoon jawiguna aad u macaan yahay waana subaxii ay safarka geli lahaayeen Sundus iyo Maxamed waxay ku beegan tahay subaxa uu Maxamed u ballan qaaday Sundus inuu geyn doono dalxiis goobtuna ay tahay magaalo xeebeedkii Ayl hadda waxaan bilaabay safarkii insha Allah rajaynayna oo qabto إن شاء الله أنا كنت نرجعني قارقنا عايرنا وضع نفتي ذو أجعل وقتها إن شاء الله حبيبي حدا وبحنا دلحيسكي مقالة أونيمي أنا كنت ترجع عادينا مقالة قصة دلحيسيو قبت أشوكتها وقبت تاريخ هيد أين أدبا بفرح سنة أنا ما تشوف أي سيدة سرت سيدك وحلم سيدك يا حبيبتي ما وتجينا ملا صرنا برا ويا بهري سفر كنا دلحيس كنا بلامه نبيح meeshan ujeedadu waa Denius waxyaala dhaqankii waxa weey waxa lagu talagalay dadkiinan qurbaha ka yimaado kale inay ku dalxisaan oo alaabta dhaqankii baa yaala ha eel waxaan ku keenay sababta ku keenay waxay tahay inaan ku dalxisto wadanka ku jeclaysiyo goobahan dalxiiskana aad timaadid lagu talagalay dhaqankii uu yaalo ka helayba xabiib aan ku gudaray aan joogno
waa buur hoosteeda buur qoran hoosteeda buuraha waan ka baqi jiray oo bahla aan ka baqi jiray baa meesha yaala waxa ku yiri waxaad ii keentay baa ku gan xata oo goobda jeclaysi ma xitaa ana jeclaysi wadankaana dhinacna ka aaday fiican inay yimaadaan dalxiiskina wali waa sii soconaya iyo goobaha aan tagi doono wali waxba ay dhiman wali waxa ku dhiman muhiimadu waxay tahay in ay faraxsanaato waxa weeye wadanka adoo ku faraxsan meelo qurux badan tagay oo waxa weeye documentary ku ah in wadanka waaba amaanba intaas ayaga filan intaan ba hadaanu leenahay wax badan magaalooyinka waaweyn oo inta guriga laga soo baxo hotel laga geeyo waa ka daalay muhiimadu waxay tahay in aan mar walba farxad geliyo ma santahay والله يا حبيبي aad baan u xiiseynayay inaan ku dalxiiso xeebaha wadanka sidoo kale ayl maanta farxadayda lama soo koobi karo ala saaxiib sinse iyo waran fiicana ما شاء الله والله سفركي waa ka imaaday 2 maalmood aan nasashaaba ku jiray waxa rabay tibaadide sooraysano hay saaxiib ay حلو والله ما شاء الله كور ماشي اي عادي تلك سلام وين إيه لا مكان ودكنا صورada aan soo galay ما بال بوندر سلام وين iyo laabde maxaa dhacay waxa ku yiraahday والله صاحي ما شاء الله صورته soo galay waa aragteen waa soo baashaalay waalanta ayga muuqata laba maalmood baa hurda hadeer laba maalmood baa caadi raacna waa ka dhacdeen baasanahay waligaa sadeexaya inta dadka u dhaxba saaxiibtu wala aad baa baasanta safarka inaan tago inaan farxad inta leeg soo helo inaan sawirada quruxda badan iska soo qaado inaan fiiriyo kulligeed saaxiibada saaxiib macal hooyade hadda wax idiga aaminsan tahay darina safarkooda labada cisho xataa gabdhihiiba guriga joogaan maxaa masla wada saaxataa ma aragtay maalin guriga ku nastaan ma hooyo guriyahooda magaalada ku yaala waa ku nasasho iyo ma gali karaa ay bilaana sheegaya sama soo dhamaysan hadeera ku sheegaya waxyaalaha ma qabo ilaa safarkii laga ma joojin karo horta anaga farxadaadu oo farxadeeda ma fahanteen runtii aad baa ugu faraxsanahay aad inoo soo baashaashay oo aad saaxiibka la soo qaadatay farxad anagana waxay ka dhigan tahay in aan kula soo qaadanay inkastoo aan ciidanay inta naga maqneed inta ka sikoo ka waran dalxiiskaagii sidoo ahaa meelihiiska ma tagteen macnaha mise qad kaliya ku koonayn niyo meelihii dalxiiska ay ma tagtay saaxiibta kaliya isku bacbacsan jireen lamaanaha shaqadooda waa inay biyo isku shushubaan inta isbacbacsan mise ay ma noo soo dhamaysaa waxa aad soo aragtaa anagu waa soo aragnay labadii iga xaraabaysatay may walaahi saaxiib waxa tagay goobihii ay sheegay xasuusay sayidka gurigiisa haday tahay kursiga ilaalada oo xagee ku yaala xeebta u sheegaysaan de waa takawaada ka bilownay waxa tagnay kale meelo badan oo wallahi buuro oo maartay la qoray meelo beerihii magaalada meel kasta ay meelaan ka tageen malaa safarka xiga markaan waxaan iskuursano insha Allah anaga isku duuban waa israacna insha Allah noloshii farxadda badneed ay ku dhisneed wada hadalka iyo dalxiiska waxa ay mar qura isku bedeshay murug talow maxaa sababay هلا أحد يران يعني سيدنا ما شاء الله حاسة الحمد لله حالة ما شاء الله حبيبي أرن بربي لما أنت قالها الله waan laabanaya wadagtahay muddo dheer baan joogaa wadanka inta badan adiga aniga waqti waa wada qaadanay fiican marka waxaan jeclaystay inaan arrimo family kala hadlo jirto inaad family kugu timaado waana laabanaya hadda laabto ma fududaanaysa inaan si fudud ku soo laabto marka waxaan jeclaystay in reerkii iyo maaragtay aab iyo aan iskiin baro maadaama ay saaxiibadayna isku keenogeen isku kaay ogeeyeen aniga adiguna inta aan joogayna waqti fiican wada qaadanay marka arrinkaas maanta rabay inaan kula wadaago
okay aaba markuu bari soo kaco isku dayayna arrinka kala hadlo insha Allah ay insha Allah wixii oo aaba kugu dhahan hadii lahaydno ila soo socodsiyo ay soo sheeg waa farxad la ka dhigay insha Allah إن شاء الله يا بيبي أبي ورثتها إن شاء الله سمعني أبي واحد بمجران وحربي إن الأرن كله وداعو ودكتور والله أنا يا قربهنا سادوكتها هي بوسكدي بدن تهاي وسكدي بدن هاي وحربنا أرن كله وداعو كاسو إن كبروا إن نلاشيد مهم كوا فرحت كليا هانتي أنت على إن عادقنا كبروا ما دام عن مانت نقضي إن وين أو معركتي حلقة قنجرك أن ربنا إن هاللعبتو وحأباهنا هاي ما دام هذا مر لبيدن كذا كمان ويناني لكن وحأباهنا هاي قف أنا عن معركتي وهل إيه مركزته أي حل كستبه كاسا كل شيء بنا وفرحت قليا وقف أكتر مهم كا شخصي هذا وقف أدوان أحسن ودبي أدوان أحسن أضو فكر أدوان أحسن بكا بان كامل سنة مركا وحن على استيعاب مركا لا إنا كبروا إنا كاس معركتي عاد سفي عندك كسكة براتان أب إلا هذا الكعيك سفي عنا ما فاهمين مركا هذا الكعيك العيو ويل كما أصحاباتهن مس وحوي حرير بقى إنك الحياة فهذا الكسيف عن يقف فاهي أب كون فاهمين أبي وسوي ناكسن أنا كفاهسينية إنك حنا قد حياة حرير جعيل إن مداوم الشيء السنة وأنا شخص لكلي أنا آمن سنة هاي فاميل كي يعني قبل إنه أنفع من غير جلني نرال جلني قابك وقصهم بندقينا ده إن دريمي سد بأمريني لكن أب معان ويلك حرير بنا قد حياة مدانا الشيء السنة وحنا على سنة إن إسكور سنة وفاميل كي جنو يمادو أنا أصبروا حير كي لقن كسدوا مع هاي وناقنا كتير إن إسكور تمادان دي قبضنا مركو هرا وإن أيد فاميل كذو سيتكتا ما دام عني أسوي نقصه قاضينا وحتى على استيعابها يا دقاء أذا يدو maanta alxamdulilah adaa ii nool oo adeer iyo qof kale raadsanmayo inaan adiga ku imaado oo kuu sheego xaaladeedii halka ay marayso qofka aan rabo inaan nolol wadaago marka taasan jeclaysta aab ما يا بقول يعني ما ساعة ما أنت يا مارتي كرتيبة كوبين شكتي قول ماذا قال أب وحبر الشدة هذه هيرك جامعة هذه هيرك ماذا قال ماشان كل رمني marka ma hadii xataa guur oo maaragtay noqonayso in maadeerada baa jooga maalin walba adeerada baa yimaado gabadhii waa kortay gabadh nagu daryiraada marka anu waxaan kula jeclaa inaa wax baratid guurkaas iyo arrimahaasna gadaal nagu dhigtid aab hadii aan leedmo guurka waxa weeye insha Allah marka weynaato jaamacadda heer ka gaartid in Allah ninka la timaadid iyo waliba ilma adeertaada joogaba waxa weeye maande waa ku ogolaa marka aab arrintaas dib inoo ku dhig hadii aan leedmo arintaas anu wiil yar hadii wiilasha hadda jooga isku maamin hadda wiil ma jiraan marka aabe saasan ku leeyahay bal arinta ka soo fakar hadii aan leedmo aabe waxba xanaaqan anu waa ku dareemayaa yeesa dhalinyarnimo ku qaadan anu wax kasta waa dareemayaa anagu mustaqbalkaaga iyo maaragtay horumarkaaga baan ka talinaynaa inaad heer fiican gaartid baan rabnaa waxbarashada ka gaartid iyo mustaqbalkaaga marka aabe waxa weeye niyada khayr u sheeg waxbarashadaadana hore ka sii wado haduu alla ku roon yahay arintaasna waxa weeye si fiican uga soo fakriyo dhalinyarnimo ay ku qaaday aabe kamaan firin inaad taay oranaysid waxaana ilaada gabadhaada ahay farxadaada jeclaa iyo mustaqbalkayga maanta kula imaada maantana waxaan ku faraxsanaa la ii diidanta waxa farxad marka ii noqonaysa inaan saar rabay la ii sameyn waay maanta markasta waa ogtahay waa idin ka dambeeyaa oo waaridkayga waxa sameeyaan waxa sameeyay yiraahdaan ma sameeyo adigana maanta wixii farxadeeda aan kula imaaday oo waliba wixii mustaqbalkayga ah waliba noloshayda ahayd oo dambe inaad igu tiraahdo aaba saamaha ilma adeerada aaba hada u baahanahay ama aan maaragtay rabo ana la sheekaysan lahaa كل ما أدري رضي إلى سهادش وحاسو لأنه وحنا كعرية فاميلك أنا عرضت إذا أنا أبتيالي عشان نواربه إنه دي معركتي أنا سكوبال كنا قلنا مرة لكن أبا أنا ما أنت فرحت إذا إنا يديدو تاسا وحيتها وحلا بحمار
hadhiin maxaa isku baalkeenaysaa maxaa isku bedelaysaa waa ka xanaaqaya waan isku bedelaya aaba macaan dareenkayga aanu maanta ma la soo koobi karo sababtoo ah wixii dhammeyd aan rabay baa ii diidantaa alla noloshu murug weynaa Sundus waxa ay la kulantay lama filaan dhanka aabe ah hadda waxa ay rabtaa in ay la wadaagto Maxamed hawsha ay kala kulantay aabe هلا محمد سنسيوري ما شاء الله يورا الحمد لله وكفي عنا سيدة ما في يعني ما أنت صح كل شيء أنا ما قرناين أكتر وبدنيا لكن يرين باتشرا صح كل شيء أنا ما قرناين ما أنت وحاولت أبى ديتنا حربنا كلا هذا أرنكني أبنا وكاديد وحيل هذا دواحة سمر عيانه اللي وحبرشة كشرتها أظن مركو دنا يجمع رواية بيري وحابة جرا دا قررتي المقدار رضاي ما هو بكاوي دست حالة ضوء وحنت ما أنت ساعة مقرنة أنتي مركا عرفتي نقول كأنه حلوسي بشارة waxbarashadeeda iyo waa yartahay iyo ma aqaan waxay leeyahay fahmi la'aan اوكي هذا ما حصل قبل xalka adigu ba keeni kara والله انا ما حصل طبعا وان جالا ان انا عن حساب وذاك ما نقول فاملينا امبرتو اسكسوكرالينا امبرتو لكن اساس داري كل عن سنين كرم لكن ان شاء الله والله nolosha mar waa ka xumaysaa barna waa ka wanaagsan waxaa la oran karaa maanta nolosha way xumaysaa وريا تري ما أنت محاخرين إنسان aqrinayaa buug aan maanta ka soo helay xeebta xaqiiqatan waxaan hayaa sheeko aad u cajiib ah waxay ka hadlaysaa riyadii rumowday marka iisu qaybtii labaad baan bilaabayaa anaa kaaga sheekayn doonay noloshii wejigeedii hore farxadda badnaa ma waxay ku sii jiraysaa murugadan mise waa ay ka bixi doontaa